ويعطي مانتا سوانا سنريدا ويعطي مانتا سوانا سنريدا aad ayay u mahadsanyihiin fanaaniinta sharafta badan quruxda badan isla markaasna codkooda toolmoon ay markasta ugu talagaleen inay dadweynahooda ku qanciyaan inagu maqashinay heesta ciida عيد وناكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير كلنتي وناكسن تدويناها وذا نقرأ صعود ودمانتين ومركلة يوم مناسبة عيد صنفر وعيد السدحات وينوصل شيء يدل لدى على داعي عابق كوفيد 19 إن كستوا دون كميلا بدن وكسي دمانيو دلال أي صوماليا كميتهين آدمود إنو حتى أنهر ليهي إلهي هاي نقصي قادي waxaa farxad weyn inuu ah inaan munaasabada ciida aan markii lixaad ku qabanno xarunta Soomaaliya ee Muqdisho Soomaaliya oo sideedaba xagga siyaasadda gooni u kala fadhiday ayaan waxaan ka baqaynaa cudurkaasi inuu saxaafadda iyo fankaba soo gaaro fanki iyo fanaanka maaha in la kala xigsado sida dhagaysigoodaba aan loo kala lahayn maamulla dadku ha joogaan markay iyaga dhaxdooda noqoto waa inay isa soo dhaweystaan isku duubnaadaan oo is caawiyaan waxaan u weerayaa taxiyada iyo dabaaldega ciid ulfidriga 2021 iyo hobolada dalka waxa kugu diyaara xidigaha wada codka malan oo fanka maanta daadihinaya Ismaaciil Arka oo uu fankiisu ka hana qaaday caasimadda Xamar oo sanadkii tagayna bariya soo joogay Hargeysa oo uu isku soo baxnaaninay ayaa barnaamijkan isu soo xilqaamay inuu sidoo yahay u dhaco balse kali kuma aha waxa la hagayay fanaaniinta Xamar midku ka sii cusla intaan dhinacaaga joogeen ku dhisayo حقيق دعميسو دليعة كوغادا حقيق دعميسو دليعة كوغادا انت دولك جوغو haddaan soo qaadano heesaha sida la yaab kale loo qaaday taasoo ku daraysiin doonta in fanka Soomaaliyeed weli nool yahay oo jiraan fanaaniin sii wadi kara bedelina kara kuwii hore هادوري لما هيسيني ليلة ما هالين ظهور ديه البودي ويصور عاشقة أنيشيني ميرا لومبوري أورسد ولي لما هالشي ويهويرك قومي حكي عاشقة يوهبابيني عشادينو كلنا عكارو كدايو عودنا ديناتاي عندي قلي طبعا برامجكي si toos ah ayuu inoogu bilowday intana hablood qaybtood caawa Cabdi Fataax ayay la heesi doonaan Shaadiya ayada qudheeda garabkayga ayay taagan tahay Shaadiya haye odayga ma fasaxday leentana gabadh waa tacaaw la heesisay inta waxba igama dhibayso in kala daran fanaaniintu waayadan qudhooda waxay bilaabeen in ayagu iska dhex bilaabaan gaashaanku ma ku adag yahay fanaaniintii hore inkastoo jireen kuwa isqaba haddana saa isumay gursan jirin jiilka cusubse wixiiba fashion bay ka dhigeen laba isugu aaday haddii la dhaho hala tiriyana lama soo koobi karo laakiin dabaaldegeenan maanta waxaa nagala qayb qaadanaya Shaadiya Sharaf Cabdi Fataax Yare Yuusuf Xaybre iyo Bilkhayr Ahmed lamaaniyaashan ayaa isla qaada dhigaya laba heesood oo masraxa dhaqaajiya Cabdi Fataax iyo Shaadiya isaga mahad celinaya maalmahoodii wacna iyo macaanka isla muubsadeen Yuusuf Xaybre iyo Bilkhayr Ahmed oo iyagana daydaygoodii ka waramaya iyo siday isku soo tilmaamsadeen ayay murtidii ku soo idlayeen taankii u macaan badan iyo waan tukubay tilmaan ugu raadsi شعيرك تلاشى
waaye tabisigii haddana tahay waaye وانتلامي محان كوكو تامي وانتكوبي تلمان كوكو رفشي وانتلامي محان كوكو تامي وانتكوبي تلمان كوكو رفشي maxamed kadir macallinkan heesaha sidii hore u qaada qayb weynna ka qaatay qabsoomidda barnaamijkan iyo xidigta fanka u baahi qabo iqra indhadeer ayaa isu celcelinaya aboowe iyo abbaay waa hees waayaa xusuusta dad badan maskaxdooda dib u celin doonta kalgacaylka geeska aga abbaayo adnayo ku gees marineen abbaayo ijiyo asiidaynin abbaayo galgacaylka guumooye iyo bowe igu noqoy maguuraane iyo bowe galgasho hurdadi nacay iyo bowe princess istahil xidigtan reejigjiga oo muddooyinkaba xamar joogtay laguna yaqaano heesaha dhiirigelinta ee one man one vote maalmahan la isku hayay ma ahee ogow waa mid ku gaara guriga hoos kaga soo xidho princess oo iyadiyo hal xaas ka badan la yaasha la kala ilaaliyo ayaa maantana qaadaysa hees ay hablaha uga digayso inay iska jiraan nimanka diiqa oo tay arkaanba qoorta ku dhagaya princess istahil walaashay soo dhawow waxaan filayaa waa markii koobaad aynu kulanno laakiin waxaan daawin jiray heestii haylo guursan gabadh kale oo guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ay noqotay hub ay ku dagaalamaan ama ay mararka qaarkood waxa weeyaan walaal hadda soo bixaan shirkado soo qora duruucda ku soo qora haylo guursan iyo haylo meeraysan iyo waxyaalo noocaas ah maxaad heesaha carada la u qaadaa ma gabdhaha nimankaas ku daraysa qalbigu dilaya waqtigaag le gabdhuhu dayaca waqtigaag le qalbigu dilaya waqtigaag le guursan munaasabadan oo noqonaysa tii ugu heesaha badneyd abid oo hal loo kala dhigo haddii la dhahana aan ka yaabayno inay ciidaba nagu dhaafto ayaa heesaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid adoobnimo naftii way diidantee dib u dhaca waqtiga qof tarinta oo raggu wuxuu ka diido igadaysa waan doondoonaya مصلحة جعيلكاغا مشكلة دمانين متبادلكم بشي anigana waxaan rabaa inaan shaadiiska bareejeeyo allah xaajigaygaan hees wadaa adaa dhabu diiday oo dheef shaxidkayga adaan kugu dhaatay oo dhaxalkayga sida u badan dhalay baan dhibtaa ka ilaalsha ka dowra xumaho dhabta inta kugu hayayo
qiiray laabtayda ku saaqan intaan sidii lahaa qalbiga surala intaan sidii lahaa qalbiga surala kasiirshaankayga samir baan ku ilaabay waxaan qeexaa intaa qisadii caashaqeena iyo noloshii qiimaha wacnay dhankaaga markaan imaaday markaan ku soo dhawaaday jacayl dhababan dareemay jawiyo farxadan dhexaaday maalmihii kulankii dhexdeena markaan dayaha ku saaray dhankayga waxaan dareemay inaan helay ruux dhammaysa inaan helay ruux dhammaysa adaa kabay maanka kaabay kordhiyey rajadii nusqantay wixii kurba iyo lurgaari kashayda adaa ka baantay adaa kaafiyey naftaydo kasbaday rabitaanka dooqa sida daruur hilaacdo hogol gogac la bixisaan isha kugu hayaayo darankay hagaaya heegan kuu noqdo baybe kuu heelanadige ado jaalahaygiyow maqalkaaga jecelahay intan ku jidbaysnaa sodigii jirnacay barnaamijkan oo bilow ilaa dhammaadba aynoo daadihinaysay suxufiyadda xilliga amaal qaaji ayaa gool ku soo idlaaday dhanka farsamada iyo filim qaadista bahda cabdiaskari tv muqdisho oo uu horkacayo injineer kabacad waa cabdiaskar oo idiin leh ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr tusmadii xaasoo